السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله بإذن الله تبارك وتعالى عاوحان كهدل دونا برامج كيني تحناها قيب كميدة برامج كاسو أنا وقوم قعدرني بدبادة قويسك إلهي سبحانه وتعالى يا وح بدباديو لكن ذلك يو اسكو ديغا وناكسن أيام وحكتها بندونا هذه ربي رالك الموضوع موضوع كهري وحا وقصاب سنة وامحي قويس كاسو أن صوفا فاهني أن كهلي دونتان ماركتا برنامجka kii koreeyay باذن الله تبارك وتعالى عاونا waxaan wax ka taaban doonaa saddex arrimood oo aad iyo aad uga gaaban laakiin aan rajeynayo باذن الله تبارك وتعالى inaan ka dhaxli doono faa'iidooyin aad u fara badan saddexda arrimood ee caawa aan wax ka taaban doono waxa ka ah waxa la yiraahdo yaa mas'uul ah laba waxa ah kaalinta aabaha saddex waxa ah xuquuqda ay kugu leedahay xaaskaaga ama hadii ka badan aad leedahay xaasaskaaga awalan waxaan falanqeyn doonaa hadii rabbi raali ka noqdo yaa mas'uul ah taasoo aan ka dhignay lambarkeena koowaad sidaad ogtihiin ba horta mas'uuliyadda koowaad waxa ay saaran tahay aabaha waa mas'uuliyadda qoyska kaalinta labaad ee mas'uuliyaddana waxa iska leh hooyada waxa saddexeeyo qof kasta oo xubin oo qoyskaas kamid ah in sidii loo kala sareeyo qof kasta ay mas'uuliyad gaar ah ay saaran tahay mas'uuliyadda aabaha waxaan ka taaban doonaa arrimo yaryar oo ay kamid yihiin awalan horta aabuhu waa inuu asaga naftiisa uu maaragtaa uu yahay mid mas'uul ka noqon karo oo naftiisu ay meel saaran tahay haddii uusan ahayn aabuhu mid asaga naftiisa ku filan ma noqon doono mid maaragtaa u gudbi kara mas'uuliyadda kale ee qoyska sida marwada guriga iyo ilmihiisa iyo ehelkiisa kale aabuhu markii asaga uu naftiisa uu daryeelo kadib waxa uu noqonayaa aaba daryeelo qoyska intiisa kale waxyaabaha aabaha looga baahan yahay oo ka way ka tahay mas'uuliyadda guriga iyo qoyska iyo ilmahaba kaliya ma ahan anagu haddaan nahay Soomaali mas'uuliyadda ama maaragtaa waxa aabaha looga baahan yahay waxaan inta badan target ka saarnaa inaan maaragtaa biilka iyo kirada aan la daala dhacno laakiin taa waxa ka bedelan mas'uuliyadda meelo badan ayay taabanaysaa wax badan ayaadna mas'uul ka tahay waxaad mas'uul ka tahay dhaqanka diinta akhlaaqda dariska iyo wax walba oo wanaaga ee gurigaas la rabo inay ka dhacaan ayaad mas'uul ka tahay aabaha waxa looga baahan yahay awalan inuu maaragtaa gurigiisa uu ku beero farxad iyo kalgacayl taasoo taabanayso dhan walba sidaan ognahay inta badan aabayaasha Soomaaliyeed waxay target gareeyaan inay ilmaha ay siiyaan jacayl aad u fara badan ayagoo hooyadood la dagaalsan masana aan farxad siin karin hooyadii guriga taana ma ahan wax looga baahan yahay mas'uuliyaddana waxa weeye waa qabyo ma ahan kaliya biil in maaragtaa mas'uuliyad loo sheegto qof kasta oo aaba ah ama maaragtaa qoys mas'uul ilaahay ooga dhigay oo rabbi subxaanahu wa ta'ala uu mas'uuliyad uu saaray gaar ah waxa looga baahan yahay siday tahay inuu u guto asagoo maaragtaa dhaqan iyo diin labadaba ma garanaysaa xooga saarayo kaalinta aabaha oo lambar 2 noo ahayd ayaan wax ka taaban doonaa hadii rabbi raali ka noqdo aabaha waxa looga baahan yahay waxyaabo fara badan oo mas'uuliyaddii hadda aan soo sheegnay ay hoos imaanayaan aabuhu waa inuu si gaar ah uga warqabo qoyskiisa sida caafimaadka baahida hooso ee ma garanaysaa wax walba oo qoyskaas ma garanaysaa ay u baahan karaan ama ay ma garanaysaa ay tabanayaan inuu yahay mid og hadduusan awoodinna qalbiga mid ku hayo inuu ahaado mid gudan karo inuu ilaahay ka dhigo inta markii laga helo aabaha waxa kaloo looga baahan yahay in uu ku dadaalo tarbiyada ilmihiisa iyo qoyskiisa si aysan dariska ugu xadgudbin una dhibaataynin dariska iyo ardada ay isku fasalka yihiin ama isku dugsiga yihiin ilmihiisa mar walba inuu si gaar ah uga warqabo ilmihiisa la dhaqaaqa ay sameynayaan iyo marwadiisa inkastoo dumarku ay ma garanaysaa dariska intooda badan ay isqoomi karaan inuu mar walba uu ka digtoonaado inuusan dariskiisa wax dhibaato aysan kaga imaanin aabuhu hadduu ka warqabkaas sida gaarka u siiyo qoyskiisa ilmihiisa iyo marwadiisa iyo intii la noolo ehel ah waxa xaqiiqa inay maaragtaa in badan ay ka nabadgalayaan bulshada dariska ilmaha wadooyinka dhan walba inay maaragtaa ay ka nabadgalayaan qoyskiisana uu noqon doono mid aad iyo aad u wanaagsan kuna dhaqmo diintii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu faray iyo dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaalinimada aabuhu markuu noqdo mid inta ka soo baxa wuxuu noqon doonaa aaba u gudbo bulshada inteeda kale inuu wax taro
waayo aabuhu markuu ilmihiisa tarbiyadooda kasoo baxa islaantiisu dhaqan wanaagsan la sameeyo wax walba oo ay ku sugan tahay uu warkahayo ma garanaysaa si kasta oo maaragtaa wanaag ah oo uu kusoo jeedan karo reerkiisa iyo ilmihiisa uu sameeyo aabahaas wuxuu noqon doonaa aaba aad u wanaagsan kaasoo anfici doona ummadda inteeda kale deriska iyo wixii lamid ah. lambar 3 xuquuqda xaaska ay ku leedahay aabaha ayaan wax ka taaban doonaa. aabuhu waa inuu maaragtay cadaalad u sameeyaa xaaskiisa haddii ay ka badan yihiin oo xaasasyaal ay yihiin kaba sii daran oo mas-uuliyaddu aad iyo aad ay usii kobcaysaa kamana soo bixi karaan dhammaan ragga laakiin intii ilaahay haleeshiya ayaa kasoo bixi karo in ay simaan xuquuqda xaasaskooda. aan ku horumarno xaaska waxa weeyaan hal xaas haddii uu ninku haysto wuxuu ka dhib yar yahay in uu xaasas badan leeyahay. wuxuu isku dayi karaa aabuhu haddii uu hal xaas leeyahay inuu mar walba uu farxadeeda ku dadaalo si kasta oo ay noqotaba dhan walba hadday tahay akhlaaqdeeda diinteeda dhaqankeeda wax walba oo ma garanaysaa islaantaas ku wanaagsan wuxuu noqon doonaa mid gacanta ku hayo. aabaha markuu ilaaliyo xaaska xuquuqdeeda sharafteeda diinteeda qalbigeeda iyo wax walba oo farxadeeda ku saabsan markuu ilaaliyo waxaa laga maarmaana inuu guto waajibaadka diiniga. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tan aayad quraan oo ku leeyahay kana mid ah suuratu taxriim aayadda 6 yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آياداس oo macnaheedu uu yahay warhooy kuwa mu'miniinta how ehelkeena ka badbaadiya naartaas oo ka samaysan dab iyo dhagaxaan oo ay maaragtaa ay gacanta ku hayaan malaa'igo kuwaas oo aad iyo aad u naxariis daran laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii uu amray ayay sameynayaan mana ahan kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caasiyo falkii uu asaga u diray ayay sameynayaan. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tan uu ku leeyahay ragga wacaashiruuhunna bilmacruuf war haweenkiina kula dhaqma wanaag. sidoo kale haweeneydana waxaa lagu leeyahay walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja. waxaa laga soo reebay raggu inay darajo dheer yihiin darajadaasoo lagu tilmaamay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa. intaa haddii la helo oo wanaaggaas iyo sharaftaas iyo dhan walba uu maaragtay aabuhu uu ku dadaalo waxaa macquula oo suuragal ah in badan ay soo baxayso bulsho aad iyo aad u wanaagsan. barnaamijkaana wuxuu noqon doonaa mid taxano noo sii socon doona biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaadna nagala socon kartaa janalkeena kaasoo ah badbaadada qoyska official. fadlan haddii aad janalka ku cusub tahay nagu soo biir subscribe like and share. wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.